ahlu sunna wal jameeca waxay sheegeen in dhibaatadii ka dhacday dhuusamareeb iyagu wax mas'uuliyad ah aysan ku lahayn. jimcihii toddobaadkii hore waxaa la ogyahay in dagaal ka dhacay caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ay dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. waxaana hadda soo baxaya warar kale oo ku aadan in ahlu sunna ay beeniyeen in ay weerareen halkaasi. cabdisalaan aadan xuseen oo ah madaxa arrimaha siyaasadda ahlu sunna ayaa sheegay inaysan qorshahoodu ahayn weerar ay ka fuliyaan dhuusamareeb, isagoo waxba kama jiraan ku sheegay in jimcihii ay beegsadeen halkaasi. cabdisalaan oo ahlu sunna afkeeda ku hadlayay ayaa sheegay in wax la ogaado ay tahay muhiimadda sida ay wax u dhaceen, islamarkaana ay ahayd howl laga soo shaqeeyey, iyadoo la sheegay in atmis iyo ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya ay duulaan ku yihiin ahlu sunna wal jameeca oo doonaysa in al-shabaab ay la dagaalamaan. fariin ayay u direen ahlu sunna madaxweynaha la doortay xasan sheekh maxamuud, iyagoo ka codsaday in isbeddel uu ka keeno duulaanka lagu yahay fikirka culummada ahlu sunna wal jameeca sida ay hadalka uu dhigay. cabdisalaan aadan ayaa sheegay in yoolka ahlu sunna leeyahay in deegaanada gobolada dhexe laga waayo qof qori wata oo aaminsan ururka al-shabaab, islamarkaana ay iyagu ku dadaali doonaan in guud ahaanba Soomaaliya laga tirtiro ururka al-shabaab. ahlu sunna intii gacanta ay ku hayeen deegaanada galmudug, al-shabaab waa ay ku adkeed in weeraro halkaasi ay ka fuliyaan, laakiin tanii markii dowladda galmudug ay la wareegtay dhuusamareeb iyo gurceel iyo matabaanba, al-shabaab dhaqdhaqaaqooda ayaa aad u xoogeystay, iyadoona kooxdan ay taageerayaal badan ku leedahay gudaha deegaanada maamulka galmudug.